hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa maanta soo gaarsiisay 3 xabo oo mashiinka oksijiinka ah hospitaalka weyn ee degmada Ceelbarde waxaana agabkan soo gaarsiiyay wakiilka WHO ee degmada Ceelbarde mudane Cabdi Maxamed Qorane uu ku wareejiyay madaxa caafimaadka degmada Ceelbarde Dr. Naaleey Cabdulaahi Qarash dhanka kale waxa hay-adda WHO mahadcelin ballaaran u jeediyay warsamo dhoofaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Ceelbarde بشباب ومدح عافمات في المدح البردي عليه عبد الله قرش أقوريجي قلب في أكسجين عافمات في المدح البردي أنا وأه عبد محمد قرن ديبو وقت المدح البردي بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كا WHO أنا المدح البردي عبد محمد قرن sida garlaanta ee walba loo soo gaarsiiyay isagii hay'adiisa caafimaad aan u baahanahay nooc kasta iyo ka warqabka ay ka warqabaan deegaanka iyo baahiyaha ka jira aad baa ugu mahadcelinayaa maanta sidoo uu sheegay oo meesjay tobankay tahay waxay nagu wareejiyeen oksijiin salaan darro 3 xabo ah oo runtii baahi weyn aan uga qabnay deegaanka isbitaalkan iyo deegaanka oo dhanba emergency iyo waxyaabaha cudurrada communication ka ee dhici kara mar walba looga baahdo waa mahadsan yihiin waa kala wareegnay waxa kale oo nala jooga hay'adda UNICEF oo iyaduna isbitaalkan fanqeysan gacanta ku hayso agab iyo daawo iyo supply wixii loo baahdo oo dheeri ah oo kale iyadana mar walba ka caawisa isbitaalka iyo deegaanka oo dhanba odayaasha waxgaradka iyo culimooyinka degmada iyo naftooda caafimaadka nagala shaqeeyo guddiga caafimaadka degmada iyo guddiga caafimaadka isbitaalka oo ugu horeeyo medical director-ka isbitaalka Dr. Maxamed Cismaan oo runtii qalabkan iyo waxaan baahida uu qabay isagana anaguna kala warqabnay marka waa soo dhaweynaynaa waa mahadsantiin WHO wixii kale oo agab ah oo baahiyada caafimaadka deegaanka ana insha Allah waa idin la soo wadaagi doonaa intaas kaga baxaya waxa ku soo bismillaahir rahmaanir rahiim jooga degmada madaxa caafimaadka degmada oo ما مشينا الأكسجين كان وعين نوصل ولكسي marka waxaan u qabnay baahi badan waan halkan u soo koobi karin ka isbitaalhaan inay waxaan ugu haysanay lama oxygen marka isbitaalka baxadiis intaan la eg oo leh qaybtii umulisada oo leh qaybtii emergency-ga oo leh qaybtii yani SC-ga oo ilmaha xaaladooda aad u daran tahay oo la iyo maxaan ku dhahaadee qaybdan oo baaxad weyn leh oo marka lama baahnaa in qaybahaas oo dhan u yaraan 2 iyo 3 ay ka yeelaan isbitaalka baaxadda inta leeg oo 2 xabo ay ka tiilay baahidiisa waa dareemi karaa marka aad ay u mahadsantahay WHO maanta na soo gaarsiisay agabka caafimaadka waan soo dhaweynaynaa waan ka mahadcelinaynaa Cabdullaahi bismillah aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maanta wareejinta qalabka caafimaadka sida oksijiinka oo dhibaatada ugu hayay ama ay sheegeen qolada caafimaadka ama ku baan ogeyn dareensan degmadana waxay xukuntaa 160 bariweyne xaqiisa ka xukuntaa xaqana ilaa yeed oo maxaan ku raasa 130 waxa oksijiin oo kale ka jira ma jiro baahi weyn baa loo qabay ilaahaygi keenay iyo dadka soo wareejiyay waa mahadcelinaynaa dalabkiisa iyo maxaan ku warqabkiisa iyo dabagalkiisa cid lahayd oo dhakhtarku ka mid yahay iyo agaasimaha isbitaalka aad baan ugu mahadcelinaynaa odayaasha magaalada haddaanahay waan ku faraxsanahay waxaan codsanaynaa in la soo sababtoo ah dhulka baaxadda leh 600 kilomitir oo meel aan maxaan ku dhakhtar ka jirin ay dhakhtar Ceelbarde u tahay ama dhakhtar marka cid kasta oo gacan ka geysatay hawshaas Badruddin Maxamed Caalim raadiyaha telefishinka Koonfur Galbeed gobolka Bakool degmada Ceelbarde